guddiga qareennada ee toddobada xubnood ka koobnaa ee uu dhowaan magacaabay guddoomiyaha ururka qareennada Somaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyay inay adeeg sharci oo bilaash ah siin doonaan dadkii xukuumaddu ku soo qabatay inay dalka soo geliyeen qaad isla markaasna ay xukun iyo ganax kala duwan ku riday. guddigan qareennada ee toddobada xubnood ka kooban oo Isniinta 1 Juun la hadlay codka bariga Afrika ayaa ugu horreyn ka warbixiyay halka ay marayso dacwadii dadkii dhowaan xukuumadda Somaliland u xukuntay inay jabiyeen go'aankii guddiga kortaga xanuunka coronavirus. qareennadan ayaa sheegay inay meel wanaagsan marayso dacwadoodii oo ay rafcaan u qaadeen iyagoona sheegay xadhiga ganaaxa iyo in hantida lala wareegaba dhammaantoodba ay yihiin sharci darro siday hadalka u dhigeen. anagoo ka mid ah guddiga ururka qareennada Somaliland magacaabay ee Sola oo bixinaya adeeg sharci adeegaas oo aan u fidinayno dhammaan dadka u xidhan arrimihii qaadka ee ay dawladdu joojisay kuwaas oo ururku markuu qoraal dheer kadib soo saaray inay sharci darro tahay xadhigoodaasi uu guddi ka kooban 7 xubnood u qabtay 7 xubnood ee guddidaasi way hawl galeen hawshii waanu dhaqaajinay dadkii abiila waanu u qaadnay dacwado kale oo haddii laga maarmi waayo dastuuriya waa u furaynaa sidaas darteed waxaanu xubnaha imika aanu halkan ku joogno ee guddigadayadani waxaanu iclaaminaynaa wargelintaas oo aanu ummadda Somaliland oo dhan u sheegayno inaanu hawshii bilownay. qareennadan ayaa sheegay in adeeg sharci oo lacag la'aan ay u fuliyeen 80 qof oo kamid ah dadkii lagu xukumay in ay dalka qaad soo geliyeen kuwaas oo ay sheegeen in ay dhammaantood ku sugan yihiin gobolka Maroodijeex balse dadkaasi ay ka badan yihiin tirada ay adeeg sharci u fuliyeen iyaga oo nafariin u diray cid kastoo kiisaskan loo haysto ama lagu xukumay inay la soo xiriiraan guddiga si ay uga helaan kaalmayn sharci. waa dad runtii aad u tiro badan intii aanu gaadhnay ilaa hadda wasiirka qof aanu sheegnay dadka kale aanu gaari weynay ee ku sugan gobolka Maroodijeexna waxaanu leenahay heladooda telefoonadaas aanu faafinay wargelinta maanta ku faafinayno hala soo xiriiraan dad badan oo kale oo muwaadiniina oo xukunna ku dhaceen baa jira oo gobolada dalka gobol walba ku xiran dhammaantood dadkaasi waa dad muwaadiniin ah xaqna u leeyahay helaan adeeg sharci iyagana waxaan ku wargelinaynaa inay telefoonadaas soo garaacaan oo ay la soo xidhiidhaan ururka qareennada si loogu fidiyo adeeg sharci u baahan yihiin. markaanu aragnay oo ururka arkay dee hawshan taagan iyo dacwadahan iyo dadkan muwaadiniinta ah ee hantidoodii sida sharci darrada loogula wareegay waxaan uu ururku gartay inuu 7 xubnood magacaabo oo u magacaabo si ay dadka hantidoodu ka maqan tahay ay ugu soo dhicin lahaayeen. adeega aanu u fidinaynaana waa adeeg bilaash oo lacag la'aan ah oo aan waxba lagu weydiinaynin waxaanaanu ka dhidhinoon dadka muwaadiniinta ah ee hantidoodii lagala wareegay ay ka maqan tahay hantidoodii sifada sharci darrada aan lagula wareegay ee looga qaatay marka ururku wuxuu gartay inuu 7 xubnood u magacaabo oo maxaa la yiraahdaa adeeg lacag la'aan ah oo free ah u fidiyo marka waxaanu leenahay dhammaan muwaadiniinta waxay wax ka maqan yihiin ee u baahan dacwadahaas in loo galo si free ah ku galeynaa nambarada iyo maxaa la yiraahdaa qareemadaas idin diyaarka ah ay la soo xiriireysaan aad la soo hadlaysaan hawshan saan ku wadeena imikana waanan bilownay. Xamse Xir Saxid wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa.